bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wanaagsan daawadayaasha xashmada iyo qadarinta inaga mudan meel kastoo aad dunida ka joogtaan iyo suulbood nala socotaan halkani waa shacabka TV oo idin soo gudbinaya wararkii ugu dambeeyay ee dhacdooyinka Soomaaliya iyo caalamka intiisa kale kulan haboon daawadayaal akhbaaraadka xiisaha badan aan idinahayna waxa ugu waaweyn Somaliland oo ku dhaqaaqday arin laga xumaado kadib markii muwaadiniin Soomaaliyeed oo laga soo musaafiriyay qayb ka mid ah gobolka Sool oo laascaanood ay ka mid tahay ay ku tilmaameen ajaanib waxaan weegi doonaa ficilada aan wanaagsaneyn oo ay mar kale ku dhaqaaqday Somaliland xilli maamulkaasi uu ku canbaxay in uu Soomaalinimada ka faano waxaan weegi doonaa ficilada gurcan oo ay mar kale soo bandhigtay Somaliland Professor Ali Maxamed Geedi ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya oo shacabka Soomaaliyeed xasuusiyay dawladnimada isagoo ugu baaqay ummaddu inay u midoobaan dib u eegaleelida qaran Soomaaliyeed oo loo dhan yahay baaq uu soo saaray Ali Maxamed Geedi ayaan idin soo gudbin doonaa saaxiibada Soomaaliya ee beesha caalamkuna waxay mar kale runta u sheegeen ra'iisul wasaarihii dhawaantan shaqada laga joojiyay Maxamed Xuseen Roble Tusbax yare go'aan cusub oo ka soo baxay beesha caalamka ayaan idin soo gudbin doonaa iyagoo oo sidoo kale ku baaqay in la dardargeliyo howlaha doorashooyinka ee dalka waxaan kale eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay xaaladda gobolka Galgaduud dhaqdhaqaaqa maleeshiyada Ahlus Sunna ay ka wadeen Guraceel iyo sidoo kale xaaladii ugu dambeeyay ayaan idin soo gudbin doonaa akhbaaraadkaasi iyo kuwa kale oo xiiso badan ayaa daawan doontaan daqiiqadaha soo socda meel kastoo caalamka ka joogtaan kulanti wacan daawadayaal halkani waa shacabka TV oo kugu helan inuu idin soo bandhigo oo idin soo gudbiyo wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan ee Soomaaliya iyo caalamka intiisa kale daawadayaal doodayadu waxay ku saabsan tahay oo aad ra'yigeena saliimka ku soo cabiri kartaan ficilka foosho xun oo ay mar kale ku dhaqaaqday Somaliland iyadoo oo muwaadiniin Soomaaliyeed ee markaasi laga soo musaafiriyay qayb ka mid ah deegaanada Somaliland arinta yaab kalena waxay tahay Somaliland waxay leedahay war dadku ajaanib weeyaan halkan ma sii joogi karaan warkaasi ka soo Somaliland ayaa ra'yigeena saliimka ku soo cabiri kartaan iyo xaaladda guud ee dalka qaarkii hadii ay ku cusubtihiin shacabka TV channelka iyaga subscribe hadinaado muuqaalka like inoo saara haatan aynu guda galno tafaasiisha wararkaasi oo faahfaahsan ugu horantii waxaanu ku bilaabeynaa halka iyo magaalada Guraceel ee xarunta gobolka Galgaduud halkaasi oo bariye la soo dhaafay dhaqdhaqaaq iska soo horjeeday oo ciidan laga dareemayay markii maleeshiyaadka Ahlus Sunna wal Jamaa ay dib u qabsadeen qayb ka mid ah magaalada Guraceel ee gobolka Galgaduud haddaba wararkii ugu dambeeyay ee dhanka Guraceel laga helayo intaasi waxay raacinayaan in xaaladdu wali ay sideeda u cakaran tahay saacad walibana dadka deegaanka waxay sheegayaan in laga cabsi qabo dagaal goobta ka qarxi kara ciidan ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa ku howlan abaabulka iyo diyaar garowgii ugu dambeeyay ee ah sidii ay mar kale dib u qabsan lahaayeen gacan ku heynta magaalada Guraceel ee xarunta gobolka Galgaduud wadaadka Shaakir oo mar kale warbaahinta gudaha waraysiisay wuxuu leeyahay hadii gooraale waxaanu ka shaqeynaynaa in aan markaasi dib u la wareegno gacan ku heynta guud ahaan gobolka Galgaduud geesta kale tiro xildhibaano ah oo shir ku yeeshay gudaha magaalada Muqdisho ayaa si kulul waxay ugu soo horjeesteen damaca kooxda Ahlus Sunna wal Jamaa xildhibaanadan oo tirahan ilaa iyo 12 aha isla markaana ku shiray gudaha magaalada Muqdisho ayaa waxa kamid ahaa Mahasalaad Xildhibaan Cabdixakiin iyo koox kale oo kamid ah xildhibaanada ee deegaan ahaan ka soo jeeda Galmudug waxay yiraahdeen waxaan idin leeyahay walaalayaalow hadii xil wax tarayo ama xoolo wax tarayaan maamuladii dalkan isaga dambeeyay ee dhowr ka ahaa qolo walba heshiis ay idin la galayeen mana jirin wax ka soo kordhay sida daraadeed ummadda dhibaatada ka daaya sida waxa yiray tirada xildhibaanada ee ku shiray gudaha magaalada Mahasalaad oo isagu kamid ah xildhibaanadan ayaa si kulul fariin ugu diray kooxda sheegatay magaca Ahlus Sunna wal Jamaa waxa uu ku eedeeyay in kooxda daadinta dhiiga shacabka ah Galmudug oo kala qaybsanta iyo dhibaato waliba ay lacag ku soo qaateen wuxuu ugu baaqay xildhibaanka in Ahlus Sunna wal Jamaa ka waantoodo falalka isku dayga ah oo ay mar kale dib uga bilaabeen qayb ka mid ah gobolka Galgaduud waxa si kordhaya dhinacyada baaqyada adag ka soo saaraya falalka isdaba joogga ah oo ay markaasi maleeshiyada Ahlus Sunna wal Jamaa isugu yeertay dib ugu bilaabeen qayb ka mid ah gobolka Galgaduud waxgarad Soomaaliyeed oo iyaguna sidaas oo kale shir ugu yeeshay gudaha magaalada Muqdisho ayaa u baaqay soo saareen waxay talo ku soo jeediyeen in la joojiyo falalka daadinta dhiiga iyo abaabulka xasilooni darada ee maleeshiyada Ahlus Sunna mar kale ka abaabushay qayb ka mid ah gudaha gobolka Galgaduud
وهجاج الضوضيال وحل صوتان ولي ودونيسان ورركا شبكة شعبك تيفي ملك سو الدنيا كجوكتان كولنتي هبون أيانو دلن هاي وكسر التدريبتا قضبضا وركان مامولكا سوماليلان إن مدة كوا شيء جون استاج وحي كوشيجين أياكو كعي فالكلو آد لوجون حي كدب مركي أي دجان ذا مامولكاسي كسو مسافرين موادين سوماليات أو أنا وحبة جلبسن قيب كم ذا قبل كسول سجارة مجال ذا لسعانات قياسي سديد جاري oo kuwa waaweyn ama xamuulka qaado ayaa markaasi waxa ay Soomaaliland ku soo daabushay muwaadiniin Soomaaliyeed isla markaana ay u soo daabuleen dhanka gobolada koonfurta Soomaaliya dadka ayaa intooda badan ahaa kuwa si qasab ah lagu soo kaxeeyay waxa kale oo xusid mudan in qaarkood dhibaato loo geystay dadkan la soo afduubay oo ay Soomaaliland sheegtay inay deegaanadeeda ka masaafurinayso waxay u badnaayeen rag dhalinyaro ah ma jirin wax diyaar garow ah hase ahaatee suuqyada iyo laamiyada ay ka soo ururisay Soomaaliland saraakiisha ciidanka Soomaaliland gaar ahaan dhanka magaalada Laascaanood mar ay ka hadleen dadkaasi ay markaa ka soo musaafiriyeen Laascaanood waxay leeyihiin uma dhalan halkan oo waxayna la mid yihiin kuwa Itoobiya ama Oromada ah sida daraadeed Soomaaliland waa dal gaar ah mana sii joogi karaan muwaadiniin aan u dhalan arintan waxay noqotay gaf ay Soomaaliland ku dhaqaaqday isla markaana ay wax ugu dhintay sharafka muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku sugan gudaha dalkooda ma ahan markii ugu horeysay oo sidan oo kale deegaanada Soomaaliland looga soo tarxiilo ama looga soo musaafiriyo dad Soomaaliyeed oo deegaanadaasi ku noolaa isla markaana ka shaqaysanayay arinkan waxa lagu macneeyay gaf iyo dhibaato ay markaasi Soomaaliland u geysatay muwaadiniinta Soomaaliyeed qaybaha kale ee gudaha dalka oo magaalada Muqdisho ugu horeyso waa ay ku noolyihiin bulshada Soomaaliyeed ee ka soo jeeda gobolada waqooyi ee dalka laakiin ma jirto wax cunsuriyada dhibaato ama gaf loogu geysto magaalada Muqdisho iyo meelo kale oo kamid ah gobolada dalka qaar kamid ah xildhibaanada ee xubnihii hore ee aqalka sare sida senator lagu magacaabo Elias ayaa mar uu ka hadlay falkan ay ku dhaqaaqday Soomaaliland waxa uu yiri tani ma ahan mid la fiirsan karo ama la daawan karo waana arin dib loogu xisaabtami doono Soomaaliland siyaasigan oo xubnihii hore aqalka sare qaybta ka timid gobolada koonfur galbeed kamid aha ayaa sidoo kale ku eedeeyay in mar walba Soomaaliland ay beegsato dadka ka soo jeeda gobolada kale ee Soomaaliya gaar ahaan koonfurta taasina ay tahay cunsuriyad iyo caburin ay ku cambaxday Soomaaliland senatarkan hore ee lagu magacaabo Elias Ali Xasan waxa uu yiri sidatan waa wax ka baxsan dhaqanka islaamka iyo midka Soomaalinimo waxa ka socda Laascaanood ee lagu sheegay dadka ka soo jeeda koonfur galbeed inay yihiin ajnabi wax garadka deegaanka Soomaaliland guud ahaan si gaar ah Laascaanood waxaan ugu baaqayaa inay arintaasi raaligelin ka bixiyaan lana joojiyo qafaalka loo geysanayo muwaadiniinta Soomaaliyeed sidaas waxa yiri xubin hore oo ka tirsanaa aqalkii sare ee waqtigiisa dhamaaday Elias Ali Xasan dadka Soomaaliland ayaa mid soo laabtay inta badan muwaadiniinta Soomaaliyeed lagu la kaco taasi oo sharafka muwaadiniin badan oo Soomaaliyeed wax loogu dhimo wahagaag ee dawadayaal wili waxa la socotaan wararka shabakada ee shacabka TV markasta caalamka ka joogtaan kulanti haboon ayaanu dulanahay oo ka soo aragtay diibta qodobada wararkeena bal dhinaca kale aynu eegno Professor Ali Maxamed Geedi oo kamid ah siyaasiyiinta murashaxiinta xilka madaxtinimada ee Soomaaliya u taagan ahaan ra'iisul wasaare ee Soomaaliya ayaa waqti xaadirkan waxa uu si weyn kaga hadlay xaaladda dalka Ali Maxamed Geedi ayaa ugu horeyntii waxa uu dil istaagay marxaladda doorashooyinka khilaafka muddooyinkii ugu dambeeyay soo cusbanaaday iyo arrimo kale wuxuu ugu baaqay guud ahaan shacbiyanaha Soomaaliyeed in ay xasiloonida ka shaqeeyaan oo ay garab istaagaan dawladnimada Soomaaliya Mr Geedi ayaa ku nuucsaday sida ay Soomaaliya u leedahay cadow badan oo gudaha iyo dibadda ah taasina ay tahay buu yiri inay ummadda Soomaaliyeed mar walba xasuusnaadaan oo ay dareemaan geediga dawladnimada Soomaaliya oo uu sheegay in sanado badan uu soo qaatay ayuu ugu baaqay inay ummadda Soomaaliyeed ilaashadaan dadaalka waqtiga dheer lagu bixiyay ee markaasi dadka Soomaaliyeed ay juhdiga ku bixiyeen Ali Maxamed Geedi ayaa geesta kale ugu baaqay qoliyaha siyaasiyiinta sheegta ee mar waliba oo dalka doorasho aado khilaafka ka hor keenaya xukuumadda in ay ka waantoobaan ficilada caynkaasi oo kale ah siyaasiyiinta xildoonka ah ayuu sheegay sida ay maanta u dhaqmaan in tusaalaha berito ay ummadda Soomaaliyeed eegi doonaan ay tahay haddii dadka Soomaaliyeed wanaagooda iyo horumarkooda ka shaqeeyaan ay taariikhda xusi doonto xilka ayuu sheegay inuu yahay darajo uu eeba bixiyo cidii nasiibka iyo calafka u yeelatana ay heli doonto laakiin waxa uu ka digay in qaab sharaf dara ah
ay wax ku doonaan qoliyaha siyaasiyiinta. fariinta cali maxamed geedi ayaa ku soo aadaysa waqti baryahan khilaaf uu ka jiray gudaha dalka una dhaxeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya iyo ra'iisul wasaarihii dhawaantan shaqada laga joojiyay. ugu dambeyntiina saaxiibada Soomaaliya oo war kooban soo saaray ayaa ka hadlay howlaha doorashooyinka Soomaaliya. beesha caalamka ayaa waxa ay ka hadleen khilaafka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda. waxay shaaciyeen in ay mar walba sii wadi doonaan dadaalka ay xalka ugu raadinayaan in ay markaasi Soomaaliya noqoto goob xasiloon oo doorasho nabdoon ay ka dhacdo. waxay xasuusiyeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya iyo ra'iisul wasaarihii shaqada laga joojiyay in ay mas'uuliyad wadareed saaran tahay oo ah samata bixinta Soomaaliya. geesta kale waxay bogaadiyeen sida ay wax u socdaan ee qabsoomidda doorashada xubnaha aqalka sare iyagoo ku taliyay in doorashada kuraasta golaha shacabka sidaas oo kale loo dadejiyo. ugu dambeyntii saaxiibada Soomaaliya waxay hadalkooda ku soo gabagabeeyeen haddii ay tahay howlo dhaqaale mid kale oo farsamaba ay ku garab taagan yihiin jamhuuriyadda Soomaaliya sidii doorashooyinkaasi ay qaab xasiloon ugu qabsoomi lahaayeen. warka cusub ee saaxiibada Soomaaliya ayaa u muuqda in ay markaasi rajo wanaagsan ka leeyihiin xal u helidda khilaafkii muddooyinkii ugu dambeeyay madaxda dawladda ka dhex taagnaa. warkii aad kala socoteen daawadayaal shabakada wararka ee shacabka TV waqti xadirkani wanaga intaa waad ku mahadsantiin daawashada wararkeena gobolba iyo goor kasta ku xidhnaada shacabka waa inoo qeybaha kale ee wararka nabadgelyo